soo dhawaad saaxiibayaal maanta ciyaaraha waxyaabaha aan idiin soo gudbin doono way ka duwayn warbixinadii hore laakiin waxaa jira dhacdooyin dhacay sanadii 2004 kubadda cagta inta badan dadku way daawanayeen dadka ciyaaraha xilliga ku soo gaaray halka dadka daayarta oo inagoo kala aan xilligaasi soo daawan laakiin aan maqal ku maqalnay ama aan ka daawanay baraha kale YouTube-ka 2004 kubadda cagta maxaa ka dhacay waxyaabo aan la sii saadaalin waxyaabo aan la sii ogeyn waxyaabo noqday shock waxyaabo caadi loo la yaabay waxyaabo in badan dadku ay la fajicin ayaa dhacay haddaan dib idin xasuusiyo 2004 waxyaabihii kubadda cagta ugu waaweyn ay ka dhacay waxa qayb ka ahaa oo weli la xasuusto Arsenal ay ku guuleysatay Premier League iyadoo hal kulan xitaa aan laga adkaan xilli ciyaareedkaas waana mid ka mid ah rikoorada ugu waaweyn kubadda cagta ka dhacay sanadkaas la yaab dad badan ku abuurtay ilaa xilliganna waariye ay ku nool yihiin taageerayaasha kooxda Arsenal ambitinkaasi waxyaabihii kale diiwaanka 2004 qayb ka ah kooxda FC Porto waxay ku guuleysteen Champions League iyadoo uu Jose Mourinho aan xitaa zaid ama si fiican loo aqoon xilligaasi finaal ay ka adkaadeen kooxda Monaco oo sanadkaas ciidan la yaab badan sameysay dhinaca kale wadanka Greega ama dalka Greega wuxuu ku guuleystay koobka qaramada Yurub wana finaal ka adkaaday Portugal oo dalkiisa lagu ciyaaray waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweyn ee kubadda cagta 2004 ka dhacay oo aan hore loo saadaalin waxa qayb ka ah kooxda Napoli ayaa u dhacday heerka saddexaad ee Serie C dalka Talyaaniga Napoli haddaad arkaysaan la yaabka dhigaysa horyaalka qaaday sanad ka hor heerka saddexaad ayay u dhacday ee Serie C dalka Talyaaniga 2004 waana mid ka mid ah dhacdooyinkii shock ah ee dhacay waxa qayb ka ah dalka Tunisia ayaa ku guuleystay koobkii qaramada Afrika AFCON waa mid ka mid ah wadamada Carabta iyaguna sanadkaasi wacdaraha taariikhaha loo diiwaangeliyay ayay qayb ka ahaayeen dhinaca kale Jarmalka kooxda Werder Bremen ayaa iyaduna ku guuleystay horyaalka dalka Jarmalka taa qayb ka ahayd dhacdooyinkii ugu waaweyn ee sanadka dhacay Shevchenko ayaa ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or sanadkaas ciyaartooy badan oo waaweyn ayaa jiray laakiin laacibkan ayaa abaalmarintaasi jeebka ku ritay kooxda Valencia ayaa ku guuleystay horyaalka Spain 9 dhibic ayaan laga sareeyay markii horyaalka ay ka horeysay 5 kulan ama ay ka harsaneyd Rafa Benitez ayaa sanadkaasi watay waana mid ka mid ah waxyaabihii cajiibka qariibka ahaa ee sanadkaasi dhacay 2004 waxyaabahan dhan aan soo sheegay waxay ahaayeen waxyaabo aan saadaashi ku jirin markuu bilaabanay xilli ciyaareedkaasi 2003-2004 waana wax dad badan cajiib la noqdo sanadkaas waxa lagu tilmaamay sanadkii mucjisooyinka sanadkii taariikhaha sanadkii la yaabka iyo sanadkii u dhacay fariirka kubadda cagta 20 sano kadibna waxa leeyahay maxaa dhici kara sanadkan 2024 iyadoo sanadkan isbedelo badan laga soo diiwaangeliyay kubadda cagta caalamka oo dhan taasoo qayb ka ah dhacdooyinkii 2004 inay ahaayeen kuwii ugu la yaabka badnaa ee ka dhacay kubadda cagta aan hore loo arag hore loo maqal ilaa haddana la xasuusto reer Arsenal ugu waaweyn yihiin ambitinkooda ilaa hadda ay ku faanaan ay leeyihiin weli ma sameyn koox kale waxa anagu aan sameynay xitaa kooxuhu ay sheegtaan iyagoo ambitinka ayaa uga weyn kuna afar daawaday dhacdooyinkan goobjoog ma ahayd oo ma daawatay